mooshinkan ayaa markii la horgeeyey baarlamaanka si looga doodo sharciyadiisa waxaa buuxsami waayey koramka kadib markii qaar ka mid a xildhibaanadii markii hore saxiixay ay ka laabteen. jaamac buule jaamac ayaa arrintani wax ka weydiiyey xildhibaan maxamuud cabdulaahi axmed abukaate oo ka mid a xubnaha baarlamaanka soomaaliya. bismillahi raxmaan raxiim. runtii aada u mahadsan tahay. xildhibaanka sidiisaba xaqu u leeyahay mooshin inuu keeno. xildhibaanada mooshin ka keenay gudoomiyaha baarlamankana koley uun sidii ula erkaatay markay keeneenna runtii waa laga dooday. guddiga joogtada baarlamanka ayaa hadda soo idlaaday shirkiisii 107 xildhibaan oo mooshinka keentay. dad fara badana ka noqdeen oo mooshinkii ka laabtay. saas darteed kooramkii la rabay wuu soo roobi waaye. mooshinkiina sidaas wuxuu ku noqon waaye ansax. taasna waxaa ka dhalanayso 6 bilood oo soo socoto dambe inaan gudoomiyaha baarlamanka aan laga keeni karin wax mooshinah. marka waxaad dhegeystayaasha u sharaxdaa haddii baarlamaanka uu fadhiistay ay soo gudbiyeen xildhibaanadu mooshinkooda sidee ayaa dib looga noqonayaa? ma iyadoo aan baarlamaanka la isugu soo noqon ayay banaanka ayagoo jooga diidayaan oo leeyihiin waa ka noqonay arrintii aan marka hore saxiixnay oo aan taageernay? waa mahadsan tahay. warqada marka hore mooshinka oo ama soo jeedinta ee xildhibaanada ay ku soo jeediyeen ay ku saxiixnaayeen intaanan guddoonka guddiga joogtada aan la soo gaarsiinin ayay xildhibaano fara badan oo ilaa 22 ka badan ay ka noqdeen. marka saa darteed sida dastuurka uu qabo guddoonka baarlamanka mooshinka waxaa kasoo jeedin kartaa 2/3 oo macnaheedu uu yahay 92 xildhibaan. marka 92 xildhibaan oo loo baahnaa in uu ku ansaxo lana qabto mooshinkii way suuroobi weyday. taas lambarkiina runtii aada uga hoos maray. marka saas darteed sharci darro uu ku noqday maadaama kooramkii la rabay uu gaari waayo. sida ay idaacadda v o a u sheegeen qaar ka mid a xildhibaanada soo jeediyey mooshinka waa ay dhammayd tirada. marka maxaad ku caddaynaysaa in tiradaasi ay isdhintay oo xildhibaanada qaarkood ay ka laabteen go-aankoodii hore? guddiga joogtada oo baarlamanka uu leeyahay ayaa shiray muddo dheer shir socday waxaana laga xaajoonayay sharciyadda iyo kooramka inuu buuxo baarlamanka dadka soo weydiista mooshinka. markii la isla wada fiiriyey waxaa lagu qanacay lambarkii inuusan dhammayn. marka dee dadkaas hadlayo wakti hore haddii aad codka ka duubteen ma ogi, laakiin hadda aan kula hadlayo saacadan shir jaraa'idna waa la qabtay. warbaahintana meeshaasay ka arki doonaan. sida muuqata adigu xildhibaane waad ka soo horjeedaa in mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka mudane jawaari. maxaad uga soo horjeedaa xildhibaanada kale ee aaminsan inay qaladaad jiraan looga hor imaan karo guddoomiyaha? waa mahadsan tahay. runtii meeshaas waxaan rabaa inaan wax yar u waadixiyo. mooshinka sidiisa waa la keeni karaa, laakiin mooshinka sababaha uu ku dhashay oo in guddoomiyaha baarlamanka laga keenaa waxay tahay laanta fulinta oo maalintii dhoweyd DP World arrimaheeda markuu qaraar uu ka soo saaray baarlamanka aana ku qancin darteed ayaa waxay rabeen inay cadaadis ku saaraan guddoonka baarlamanka in arrinkaas dib loola noqdo. marka sida aan ka warqabno golaha wasiirada xubnaha ku jiro qaar ayagoona xildhibaano ahayna wasiiro yihiin, kuwana xildhibaano iyo wasiiro isku yihiin. marka kuwii dalka gudihiisii joogay iyo kuwa safarada shaqo ku maqnaa oo dhan oo xildhibaanada iyo wasiirada isku ahaa waxaa lagu soo ataajgareeyey waraaqdan mooshinka waana loo wada saxiixay. macnaheeda waxa waaye xukuumaddii ayaa qaybtii ugu weyneyd ka qaadatay. 40 xildhibaan oo golaha wasiirada ku jirto ayaa maaragtay ugu badnaa dadkii saxiixay meeshaas. kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamuud cabdulaahi axmed abukaate oo ka mid a xubnaha baarlamaanka soomaaliya. khadka telefoonka ee muqdisho ayuuna kula hadlayey wariyaha v o a jaamac buule jaamac. sidoo kalena dhegeystayaal waxaa ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawhari iyo weliba xogeynta baarlamaanka. wariyahayaga xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho. kulan degdega oo isugu yimaadeen guddiyada joogtada ah ee baarlamanka federaalka soomaaliya ayay uga doodeen mooshinka ay qaar ka mid a xildhibaanadu ka keeneen guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari. waxaana dood dheer iyo falaqayn kadib gebagabadii saxaafadda la hadlay xogayaha guud ee baarlamanka soomaaliya cabdikariin xaaji cabdi buux oo sheegay in mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamanka uu sharci ahaan burburay kadib markii ay ka laabteen 16 xildhibaan. xildhibaanada soo saxeexay mooshinka waxay ahaayeen 107 xildhibaan. waxaa ka noqday 16 xildhibaan. waxaa mooshinkii ku soo hadhay 91 xildhibaan. waxaana looga baahan yahay siduu sharci xagga tirada uga noqdo waxaa loo baahan yahay inuu 92 noqdo. marka maadaamuu 91 noqday sharciyadii tirada ayuu ku buray. sidoo kale guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari
oo kulanka gudiyada joogtada ah kadib warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in xildhibaanada mooshinka keenay ay si daahfurnaan leh u soo gudbiyeen hindisahooda waxaana uu sheegay inay sharciga ku kala baxeen wixii iminka ka dambeeyana loo baahan yahay in loo howlgalo sidii loo gudan lahaa waajibaadka hor yaalla baarlamanka. waxaan codsanayaa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka in ay ilaaliyaan midnimada golaha oo aan hawsheena caadiga aan wadano arrimahaana meeshay ku xiran tahay waxaan sabtida wixii laga bilaabo waxaan bilaabanaynaa howlaheena caadiga ah oo shuruucii noo yaallay aan sii wadan doonaa mooshinkanna halkaasuu ku buray waa yani waxaweyaan laysu xumaan laysku fiyowaado waa dimuqraadiyadii loo baahnaa waa sidii loo yani dhammaan dadka keenay iyo dadka iidsan iyo kulligood waa ku ammaanan yihiin inay adeegsadeen agabkii ayaga loo baahnaa dimuqraadiyada ay ku fulinayeen waa ku ammaanan yihiin dhammaantiin waa idinku mahadinayaa sida xilkasnimada leh iyo biseelka siyaasadeed aad u maamusheen mooshinkan maanta la keenay waxaa loo yimaada in shacbiga suu nagu bartay daahfurnaanta nagu bartay inaan ku maamulno aad iyo aad baad umahadsantihiin. kalfadhiga saddexaad ee baarlamanka Soomaaliya oo uu dhowaan furay madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku bilowday mooshin iska soo horjeeda waxaana saakay aroornimadii hore lagu baraarugay xildhibaano tiradoodu gaarayso 108 xubnood oo mooshin ka dhan ah gudoomiyaha baarlamanka u gudbiyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka Cabdiwali Ibraahim Muudey. Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho.